السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهانتين بميل والبدوني دافعي ذات كجوكتان هل كان سوران يرو اوفيشال هل كان waxaan ku soo gudbinayaa caawa barnaamij xiiso gaar ah oo leh kaasoo mucjiso ah maxaa kamid ah mataqaanaa waa sixirka taleefoonada la iskaga gudbiyo taleefoonka waad iskaga hadashaa gabar yahay wiiliyo taleefoonka waad iskaga hadashaa cid kugu maqan iyo cid ka maqan midna lama socotid هو بين ayaad haysaa iska fiiri calaamadahan hadii aad isku aragto waxa aad qabtaa sixirka la iskaga gudbiyo taleefoonada ama android ha ahaado ama yuusan ahaanin waa isku mid Assalaamu alaykum sheekh maxaad noo haysaa caawo bal wax nooga faahfaahi sixirka taleefoonada la sheego waxaan hayaa sixirka taleefoonada la iskugu diro iyo calaamooyinka lagu garto iyo sida la iskaga cilaajiyo waa gartay waxa weeye asixirul hawaatif wax loo yaqaano oo kamida sixirada dadka lagu dhibaateeyo sixirul hawaatif baa loo yaqaan ama sixirka mobilada dadka qaarkood soo yaqaaniin iyo calaamooyinka lagu garto dadka qaarkood waxay ku leeyihiin sheekh waa la sixiray sheekh waa la sixiray sheekh waa la dhibaateeyay xagee laga sixiray xagee laga soo gaaray dib nuucay baa ku haysto sixirka lagu sixir waa sixir nuucay ah sidee baa iska cilaaji kartaa maxaa calaamooyin lagu gartaa sidee loo daaweeyaa bayaan dambe waxa badatay dadkii in la sixiro nuuc walbana lagu sixiro waan gartay waxa soo baxayo dhibaatooyinka lagu haayo bulshada waxa soo baxay dhibaatooyinka lagu haayo bulshada sida banaanba daalimiintu kama zuulaan ilaa ay dadka muslimiinta ay dhibaan daalimiintuna diin celisaa ma lahan mid muslim mid kristaan mid yahuud wax celiya haba yaraatee daalimiintu ma jirto kama zuulaan ilaa inay dhibaan ummadda muslimiinta waan gartay sheekh bal noo sheeg calaamadaha lagu garto sixirka taleefoonada la iskaga gudbiyo sixirka taleefoonada calaamooyinka lagu garto walaalayaal dhowr calaamo ayaa lagu gartaa waan gartay sixirka taleefoonada la iskugu diro calaamooyin dheer ayuu leeyahay waan gartay sheekhow sidee loo cilaajin karaa imise calaamad ayuu leeyahay sidee baan ku dareemi karaa halkee laga dareemaa bal wax noo sharax calaamooyin dhowr ayaa lagu gartaa walaalayaal sixirka noocaas calaamadaha lagu garto waxaa kamid ah ruuxa oo soo jeedo inuu dareemo inay dad u yeerayaan oo kale dad inay ku yeerayaan inuu ruuxi dareemo sifa qofkii in loo yeerayo dareemaya qofkiina qof hurdama waa qof soo jeedo calaamada koowaad ee lagu garta sixirka noocan weey qofkii inuu dareemo in loo yeerayo kaleeto laakiin oosan garanayn meel looga yeerayo cod oo garanay ayaa loogu yeeraya cod codad fara badan baa loogu yeeraya ruuxa wuuna maqlayaa cid u yeeraysa iyo meesha looga yeerana ma garanayo waa calaamada koowaad ee lagu garto sixirka taleefoonada labo calaamada koowaad ee lagu garto waxa kamid ah ruuxa oo markuu hurdo oo dareemo inuu meel fog oo aad u fog inuu ka soo dhacayo kaleeto ruuxa oo dareemo waa calaamada labaad ee lagu garto sixirka taleefoonada weey calaamada saddexaad ee lagu garto waxa kamid ah ruuxa oo halka maskaxda iyo caloosha iyo boga iyo xundurta hoosteed oo ruuxa laga qabto calaamada saddexaad ee lagu garto weey hal mar baa ruuxi waxa laga qabanayaa maskaxda iyo boga iyo caloosha ilaa xundurta wareega ayaa ruuxa hal mar laga qabanayaa waa calaamada saddexaad ee lagu garto weeye sixirka noocaana calaamada afraad ee lagu garto waxa ay kamid tahay calaamada afraad ee lagu garto waxa kamid ah ruuxa inuu dareemo korka inuu jajabo lafa burbur cariiri ruuxa inuu dareemaba had iyo jeer ruuxa oo dareemo inuu dhimanayaba hadduu guriga albaabka uga baxo inuu dareemo inuu dhimanayo kaleeto waa calaamadaha lagu garto ayuu kamid yahay calaamada afraad ee lagu garto waxaa kamid ah ruuxa markuu albaabka ka baxo inuu sawirtaba ama soo hor istaagtaba inuu dhimanayo ama nolol xun inuu ku dambeynayo ayuu ruuxa aaminaya calaamada shanaad ee lagu garto walaalayaal waxaa kamid ah ruuxa oo boga looga dhago hal mar boga oo looga dhago calaamad shanaad lagu garto weey hal mar sida gaaska kale loo qabto oo dinna inay ku taagnaato garabka silkiisa ruuxa oo dareemo waa calaamada shanaad lagu garto weey calaamada lixaad ee lagu garto waxa kamid ah sixirka noocan ee taleefoonada la iskugu diro ruuxa oo markuu hurdaayo habeenkii soo hurdaayo hal mar hurdadii ka soo boodaba hal mar buu ruuxii hurdada ka soo boodaya wax ku dhacay haba yaraatee ma jirto hal mar buu ruuxii hurdada ka soo boodaya habeenkii saqda dhex markii la gaaro 8 saac 7 saacadii amin saqbar ah xilliga ay dadku hurdaan buu hal mar ruuxii hurdada ka soo boodaya wax ku dhacayna ma garanayo hurdadii ayuu ka soo naxaya waa calaamada toddobaad ee ayadana lagu garto sixirka noocaana weey calaamada toddobaad ee lagu garto sixirka noocan weey calaamada kale ee lagu garto sideedaad waxa kamid ah ruuxa inuu dareemo
dhiig iyo dad ceersanayo ama dad dilaayo oo yaqaano inuu dareemo ruuxa dhiig inuu ku dhex jiro kaleeto sida qof uu yaqaano inuu dilaayo kaleeto sida in la eersanayo kaleeto guryo jajab ah asoo ruuxii dhex lugeynayo la bursanayo habeenkoo dhan iyadoo la bursanayo ruux uu ku riyoodo waa calaamada sideedaad ee lagu garto sixirka noocan weeye walaalayaal riyada kaleeto lagu dareemo waxaa ka mid ah ruux oo had iyo jeer ruux oo ku riyoonayo kaleeto in ilmihiisii laga qaato kaleeto ama gurigiisii oo dab qabsado kaleeto ama gurigiisii in shanqarka dhex yeerayso kale inuu dareemo ruuxaas waxay ka mid tahay calaamooyinka lagu garto sixirka taleefanada ajir iyo xasanaad la soo koobi karin eebaha kaas iyo dadweynaha Soomaaliyeed waxaan uga digayaa sixirka taleefanada sixirka kaliya ma ahan in lagu taabto in wax lagu siiyo laakiin waxaa jirto siyaabo fara badan oo la isu sixri karo halkani waa Sooraan Yare Official fadlan hadaad igu cusub tahay subscribe like and share mahadsan